ugu horeyn inaan u mahad celiyo Allah subhanahu wa ta'ala oo inoo suurta geliya guud ahaanteen inaan halkaan isugu nimaado noo suurta geliyay guulihii mira dhalka ahaa ee aad goobaha dagaalka aad ka soo hoyseen oo aan ognahay runtii cadawga argagixisada ee arxan laawayaasha ee dadkooda iyo dalkooda dhibaateynaya casharadii aad ugu dhigteen xubin kasta oo idin kamida waxaan runtii aan ugu mahad celinayaa si qalbiyana runtii oo aan leeyahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin sida xagar la'aanta howlkarnimada dulqaad kale firfircoonida iyo geesinimadu ku dheehan tahay oo uga soo dhalaasheen dhamaan waajibaadkii qarankiina aad u hayseen waxaan sidaas oo kale runtii dhamaanteen isaga tacsiyeynayna geesiyaashii qarankeena saaxiibadeennii walaalaheennii garbaheennii naftooda u huray sidii ay u ilaali lahaayeen sharafka iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed sida ay u ilaali lahaayeen qarannimadeena sida ay u ilaali lahaayeen nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed sida ay u dhaqan gali lahaayeen u hirgeli lahaayeen dawladnimada waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala jannadii ha idinka waraabiyo runtii xasuustoodu ma noqon doonto mid maalintii ayaga aan weynay naga go'i doonto ma noqon doonto waxay ahaa doontaa mid qalbiyadeena baaqi ku ahaata waxay noqon doontaa mid qalbiyada madaxda qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed baaqi ku ahaa doonta hadii Ilaahay ogolaado waxaan sidaas oo kale Allah subhanahu wa ta'ala caafimaad taama uga baryaynaa dhamaan saaxiibadeena ku dhaawacmay hawlgallada aadka u qiimaha badnaa aan ku jirnay saaxiibadaydiyow waxaan hayno runtii waa hawlaad aad muhiim u ah qofka muwaadinka mas'uuliyad ayaa saaran ilaalinta sharafka iyo karaamada tiis ugu horeysa imada dadka Soomaaliyeed oo kale ilaalinta badqabka nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa magaca muwaadinka waa la wadaaga muwaadinna waa muwaadin dabcan jooga hawlihiisa gaarka ah heesta midna waa midka anagoo kale ah aan isleeyahay anagoo kale ku ah marka ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan waxaan dhihi karnaa waa muwaadiniinta qaatay go'aankii ugu fiicnaa ee qof muwaadin u qaada lahayd wuxuu yahay asigoo ujeedo gaar ah ee uu leeyahay aanay jirin ayadoo aanay jirin interest gaar ah oo ku doonayo inuu dhammaan hawlihiisa gaarka meel iska dhigo u soo istaago danta qarankiisa inuu raali ka noqdo go'aansado naftiisa iyo dhiigiisa inuu u bixiyo ummadiisa inuu u adeego qarankiisa inuu u soo jeedo inuu oonka u maro inuu qoraxda u joogo inuu dhadada u joogo inuu uga fogaado familkiisii qoyskiisii iyo gurihiisii ayadoo ujeedadiisu tahay ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed suulinta cadawga argagixisada ah ee ummadeennii ragaadiye ummad kasta ee horumar samaysa ummad kasta ee barwaaqo gaarta hal furo baa asal u ah caafimaad in la helo waxbarasho in la helo horumar iyo barwaaqo kale in la gaaro dhan walba wax kasta oo la sameey lahaa oo horumara hal furay leedahay halka furo wuxuu yahay amniga hadii aan amni la helin waxbarasho tayo lama la heli kara hadii aan amni la helin caafimaad ma la heli kara hadii aan amni la helin horumar kale ma la gaari kara wax walba oo marka ku saabsan horumarka dalkeena iyo dadkeena asalka waxa uu aho waxa waaye amni koo waa amni laba waa amni saddex waa amni afar waa amni shan waa amni
amniga marka aan xaqeejino wax kasta ee dadkeen oo u baahna maalinta ayay suurtagal noqon karaan maalintaas ayaan waxaan xaqeejin karnaa mustaqbalka dadkeena iyo dalkeena maalintaas ayaan waxaan xaqeejin karnaa in la dhowro la ilaaliyo sharafka iyo karaamada muwaadiniinteena dhammaantiin ama dhammaanteen maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhiso waxaad ka war haysaan cadawga argagixisada oo dhibaatada oo wadankeena ku hay deegaanada ay joogaan oo maanta dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataynayaan nolosha ka jirta ka war haysaan caafimaad ma ka jira waxbarasho ma ka jirta wadooyin la dhisay ma ka jira horumar kale iyo horumarin kale ee qaybaha kala duwan nuucay doonta ahaatee ma ka jirta kama jirto waa cadow marka loo soo diray dadka iyo dalka Soomaaliyeed waa cadow loo soo diray inay daadiyaan dhiigga dadka Soomaaliyeed waa cadow lid ku ah jiritaanka dalkeena iyo dadkeena waa cadow lid ku ah dawladnimadeena waa cadow lid ku ah sharafkeena iyo karaamadeena oo meel walba naga gudbinaya in aan nahay ummad waalan oo aan danteeda garan waxaan idinkaga mahad celinayaa isaga mahad celinaynaa dhamaanteen inaad tihiin kuwa doorta marka dadkooda inay ka bixiyaan mushkiladda noocaas inaan nahay kuwa go'aansaday naftooda iyo dhiigooda inay u bixiyaan qarankooda inay u bixiyaan dadkooda midna ogaada dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobol walba iyo gees walba abaal iyo wanaag ayay idinkaga hayaan waxaad habeen iyo maalin u taagantihiin oo dhafraysan